اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وخير خلقك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبة الإسلام ولا ليال مركز الدنيا كسوغن تعان وحنقول سلامي سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وحان جوغنا وقتي كالقورة دنيا أن كنا والله taariikhda miilaadiga maanta waxay tilmaamaysaa 31 bisha December 2024 saacado kadib waxaa bilaabmaya 1 bisha January 2025 waxaan ku jirnaa 29 bisha Jumaad الثاني ama Jumaad الآخر 1446 هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. أحبة الإسلام وحن كهذا الإيمان هوري قيمتي الدون كإسلام كا سنة تغي يعبرات الدنيا المسلم كا سنة صوصعدا أيام كلا كهر وحن كهذا يعبرات سنة كصوصعدا جمهورية جيبوتي iyo waxaan ka hadlay qiimeynta sanadkii maanta waxaan jeclahay arinta inaan ka baxo oo si gaar ah u fiiriyo arin anaka ka bashar bini aadanimadeena ku saabsan oo ah waqtiga ina maraya ee inagu dul socda aan xisaabinayna sanad kasta waxaan gaaray 40 soddon 25 konton 60 80 boqol aan leenahay waqtiga sida u socda sida aan uga faa'iideysan lahayn baan jecelahay maanta inaan ka hadlo oo ka siiyo darsi yar oo kooban dhalinyarada iyo dadka muslimiinta ah waxa weeyaan walaalayaal waqtiga waxaa ku jira 4 arrimood oo u baahan inaan fiirino waxaa waqtiga ku jira isbedel waqtigu isaga dhexdiisana waa ku bedelanaa anaguna waan isku bedelnaa oo tagyiir baa inagu dhaca hadday tahay dhinaca jirka iyo hadday tahay dhinaca fikirka iyo hadday tahay dhinaca amalka iyo alamka dhibaatada murugada iyo rajada waxaa kaleeto oo waqtiga ku jira tadwiir evolution baa ku jira qofku uu koraa waqtiga dhexdiisa madaxiisa kobca dareenadiisa kobca maskaxiyan iyo dareen ahaanba uu kobca jir ahaanna waa kobca ambase uu dumaa qofku sida arki doon marka waqtiga waxaa ku jira tagyiir baa ku jira isbedel baa ku jira waxaa ku jira oranay tadwiir oo ah evolution baa ku jira amba kobca baa ku jira waqtiga waxaa ku jira takhtiit planning baa ku jira qofku sanadka 2025 amba 1946 muxuu qabanayaa maxaa u qorshaysan bisha ramadaan ee soo socota maxaa qorshe ku yaala shacbaan maxaa qorshe ku yaala rajab maxaa qorshe ku yaala maxaa qorshe ku yaala sanadka ka dambeeya shanta sano ee soo socota maxaa qorshe ku yaala waa planning weeyaan hadduu ilaahay ku daayo marka taas waxa dhada waa takhtiit waqtiga ku jirta waxa kale oo waqtiga ku jira waxa loo yaqaano at-tanfiid al-istiraatiiji wixii aad takhtiidisay inaad hirgelisid oo si istiraatiiji u hirgelisid maxaa mudan inaad qabatid maxaa mudan inaad dib u dhigtid waxa mudan inaad qabatid maxaad mudnaanta siiyay waxa mudan inaad dib u dhigtidna maxaa dib u dhigay arrintaasina waxay noqonaysaa arrin muhiim ah marka waxa weeyaan markaan waqti ka hadlayno waxa ku jira 4 arrimood waqti haddaad ka hadlaysid hadda iyo jeer madaxaaga waa inaad soo gashatid maaragtay 4 arrimood oo ay ugu horeyso isbedel uu ku xigo kobac uu ku xigo planning iyo qorshayn ay ugu dambayso hirgelin
وحويا أحبة الإسلام ولا ليال أنت أنجلين موضوعا مهم كأوحا جعلها إن الناس وبندقوا كيف إذا ستان إلا إيو مارتي سجالة بسيدة بوك ومهم كيف إذا وقتها وأي قرين ضد كل الدول أو مسلم يرى قلبات بسكوجرا وقته ضد فربضن بقليه إن علم بارس كسمعيان sidii si fiican looga faa'iideysan lahaa erayo waxaa soo biiray cusub oo waqtiga ka faa'iideysigiisa la geliyey oo cusub oo maanta wax ka sheegi doono waxa weeyaan kitaabka ugu horeeya waa kitaab aad u fudud nin la oran jiray Dr. Ibrahim al-Fiqi baa qoray wuxuu ka shaqeyn jiray hotel weyn oo ku yaala Toronto maartay wadanka Canada ninkaas wuxuu qoray buug uu bixiyay maamulka waqtiga idaaratul waqti sidee waqtiga loo maamulaa waa buug yaab leh weeyaan laakiin waa luqad jilicsan oo carabi ah oo qofka xataa carabiga aad u aqoon u aqrin karayo waxaa kaloo jira buug magaca wata oo dhada idaaratul waqti iyo mid labaad oo dhada fannu idaaratul waqti sidee waqtiga loo maamulaa ambase arka waqtiga lagu maamuli karo isagana waxa qoray Dr. Tariq Aswaydan marka Tariq Aswaydan Ibrahim al-Fiqi Tariq Aswaydan waa khabiir istiraatiijiya oo ka tirsan culimada waaweyn ee dhinaca istiraatiijiga amba dhinaca maamulada wax duruus ka bixiya marka isagana labada buug baa ka mid ah waxa kaloo jira kitaab la yiraahdo istithmar al-waqti sidee waqtiga loo maalgashadaa maalgashiga waqtiga sidee u maalgashanaa caadil sharar baa qoray isna waa carabi laakiin waa buug isaguna aad u fudud laakiin labada buug ee hore soo sheegay ka culus kana cunqisan oo ka gun dheer kana maaragtay macluumaad badan oo ku fiican in tababar lagu qaato aba lagu bixiyo tababar waxaa jira kitaab uu qoray ninka la yiraahdo Stephen Coven 1889 oo noqday buugga loogu iib badan yahay Mareykan iyo Canada iyo Yurub kitaabka waxaa dhahdaa 7 caado amba 7 dhaqan kadibna wuxuu soo saaray dhaqankii 8aad marka kitaabkaasi wuxuu u bixiyay dhaqanada 7 ah ee dadka dunida ugu fal wanaagsan ugu wax qabad fiican kitaabkaas waxa qoray ninkaas la yiraahdo Stephen Coven wuxuu ku qoran yahay Ingiriisi Faranji Arabic Talyaani iyo luqadaha dunida inta ugu badan baa lagu turjumay waxaa kale oo jira kitaab muhiim oo qoray Richard Koch oo la yiraahdo 80-20 kitaabkaasina waa kitaab muhiim ah nin reer galbeed ah qoraysa magaciisa ka arkaysaan dhowr gooran akhriyay laakiin wuxuu ka faa'iideystay juhdigaaga 20 geli boqolkiiba natiijada iyo resultaatku waxay noqonaysaa boqolkiiba 80 dadku cagsi bay qabtaan shaqo badan bay qabtaan oo boqolkiiba 80 laakiin natiijadu waa boqolkiiba 20 isagu wuxuu soo bandhigayaa shaqo murakaza shaqo aad xirfad u leedahay shaqo aad isdul dhigtid tan sheegi doono oo boqolkiiba 20 waqtigaaga aad gelisid boqolkiiba 80na natiijadii way noqonaysaa waxaa jira kitaab kale oo muhiim ah waxaa qoray al-Allaamatu Yusuf al-Qaradawi waa kutubta ugu fiican waqtiga wuxuu u bixiyay al-waqtu fi hayat al-muslim waqtiga nolosha qofka muslimka ah halkuu kaga jira waa kitaab 72 page ah waa risaalad weeyaan laakiin kitaab kasti oo akhriyay uu ka qiimi badan yahay maxaa yeelay waa kitaab nusuus lagu soo ururiyay aqwaasha ilaahay ee waqtiga aqwaasha rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee waqtiga aqwaasha salafkii ee waqtiga aqwaasha culimadii waaweyneed ee waqtiga
aqwaasha mufakiriinta caalamiga ee waqtiga lana nidaamiyey oo uu nidaamiyey si maaragtay aad u qurux badan oo aad ka faa'iidaysan doontid haddaad akhridid waxaa kale oo jira kitaab kaleeto oo isaguna muhiim ah waxaa qoray ninka la yidhaahdo sheekh cabdulfataax abu qudda sheekh cabdulfataax abu qudda waa caalim u dhashay dalka suuriya isaguna waa muxadis weyn buu ahaa raximahullah wuxuu ka qoray kelmad uu u bixiyey qiimatu zaman cinda alculamaa waqtigu qiimaha uu u lahaa dadka culimmada ah marka kitaabku wuxuu leeyahay sabab keentay inuu alifo dhalinyarada markay soo siyaartaan waqti badan bay ka ridayeen markaas buu u qoray kitaabkaas si ay u gartaan waqtigiisu inuu yahay waqti waqfi ah oo ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala kitaabkaasi abu qudda uu qoray waa kitaab u fiican laba qolo wuxuu u fiican yahay murabbiinta dadka tarbiyadaynaya macnaha waxa weeyaan wuxuu u fiican yahay culimmada xagga tarbiyadda ku takhasustay hadday tahay waalid hadday tahay sheekhyo wax tarbiyadeeya hadday tahay jamaacadka islaamiga ah hadday tahay xarakaadka wixii la halmaala kitaabkan muhiim buu yahay waxaa kaloo muhiim u yahay dadka aqoon-yahanka ee culimmada ah culimmada markaan ka hadlayno waa culamaa uddiin iyo culamaa ulfikirka غير الدين culimmada waaweyn ee nolosha oo dhan dhaqaalaha siyaasadda bulshada dhakhtarnimada albaaxithuun wixii culimo loo yaqaano labadaba wuxuu u yahay kitaabkani kitaab qiimi badan kitaabka kaleeto ee muhiimka ah waxa weeyaan waxaa qoray nin reer kuweyda doctor jaasim bin maxamed almutawac baa dhahdaa wuxuu qoray alwaqtu cimaarun aw damaar waqtigu waa mid wax lagu buuxiyo oo wax dhisa mise waa mid wax dumiya waqtigaagu amba waxbuu duminayaa amba waxbuu dhisayaa waqtigu mala meel dhexe marka kitaabkaasna waa muhiim ugu dambeyn waxaa jira kitaab uu qoray khalduun alaxdab waxaa la dhahaa ta'amulaatun wa sawaanixun fi qiimati zaman waxaa la dhahdaa qofku wuxuu ta'amulay uu dhex dabaashay qiimaha zamanku uu leeyahay khalduun alaxdab baa dhahdaa ninka qoray isku soo ururi intaas oo kitaab baa waqtiga laga qoray marka aniga waxaan jecelahay maanta inaan waqtiga sideen uga faa'iidaysanaa aan ka hadlo maxaa waqtiga inaga khasaariyana aan ka hadlo qiimaha waqtiga kama hadlayo maxaa yeelay culimmadu in badan bay qur'aanka inooga soo saareen qiimaha waqtigu leeyahay laakiin waxaan in yar ka hadlayaa sheekh yusuf alqardaawi wuxuu dhahdaa waqtigu wuxuu leeyahay waxyaalo uu kaga duwan yahay wax walbaba oo khasaa'is ah saddex arrimood buu ku tilmaamaa waqtigu sariicu linqidaa horey buu ku dhaafayaa waqtigu waa hadduu socdo ma soo noqdo waqtiga hadduu ku dhaafo wax kugu bedelaya ma jiro yacni waqtigu wax qiimihiisa bedeli karaa ma jiro lama kaydin kara xataa waqtiga waa qiimo aan la kaydin karin wax walow adduunka waa la kaydiyaa raashinka waa la kaydin karaa dahabka waa la kaydsan karaa lacagta waa la kaydsan karaa xataa caafimaadka iminka waxaa la ogaaday in la kaydin karo oo waxaa jira wax dhahdo tacziizu sixa in caafimaadka la kaydiyo laakiin ma suurtagal ma tahay in la kaydin karo waqtiga may lama kaydin karo waqtiga walidaalika waqtigu waa sariicu linqidaa maa madaa minhu laa yacuudu abadan lamana kaydin karo badiilna male maadaama uu waqtigu sidaa yahay su-aasha ugu horreyseen isweydiinayna waxa weeye maxaan waqtiga inoo faa'iideyn karaa inaan ka faa'iidayso su-aashaas waa muhiim waana su-aal istaraatiiji ah kelmad wal haddaad qorataan muhiim bay inay tahay weliba waxaan ugu talagalay dadka raba inay mustaqbalka galaan taariikhda inay waxaan ka faa'iidaystaan qof walba muhiim uma aha darsigani qofka qaraar qaatay decision qaatay inuu noloshiisa wax ka bedelo isla markaasina uu noqdo lambar culus oo dunida ku soo biiray horta marka koowaad waxaad iska ilaalisaa inaad maskaxdaada wax walba u fasaxdid oo uu kugu dhaco wax dhahdo tashatud diini inay maskaxdaadu ay badato inaad ka fikirtid inaad wax walba qaban kartid kulla shay inaad qaban kartid
madaxa ka saar waxyaalo xadido aad qaban kartid waxa weeyaan iska ilaali in madax ballaar uu kugu dhaco amba madax fidis uu kugu dhaco amba madaxaagu uu noqdo madax mutashattita oo wax walba qaban kara adigoo matalan ka shaqaynaya school dhigashadiisa ha u boodi inaad ka shaqaysid inaad noqotid qof sportka dadka wax kala qabta haddana ka shaqeeya dhinaca guurka iyo dumarka isku dhiskooga haddana mashaakilka xalliya haddana wax walba ha gelin xadid ba aragtay maskaxdaada ka ilaali inay tashaduto ay badato ay ballaadhato maskaxdaada ururi shaqadu koobaad ee dadka naajixiinta ay qabtaan arrinta labaad waxa weeye shaqada aad qabanaysid waqtigeega u xadid limited u samee matalan waxaad ka shaqaynaysaa inaad maqaal qortid hal saacada guriga fadhiiso xafiiska fadhiiso maktabadda fadhiiso isku xidh dhammee waxaad rabtaa in aad matalan aad qabatid inaad samaysid master waqtiga u xadid 2 sano soo socota waxaan u xadiday inaan master ka dhameeyo hawlaha kale aan qabanayo waxaan ka dhigayaa 80 hawshan baan qabanayaa boqolkiiba waxaad matalan istiri waxaan rabaa in aan quraanka xafido oo aan xafido 30 juz ee quraanka ah waa inaad waqti u xadidid una furnaan 6 bilood hal sano sanad iyo badh shaqo kale aad qaban oo quraanka aan ahayn marka waxaa la yidhaahdaa shaqada aad qabanaysid u xadid waqtigii aad ugu tala gashay inaad ku qabatid ha furin waqtigaaga 3 xadid kala mudnaantan shaqada awlawiyaadkaaga xadid maxaa maanta ku priority maxaa kuu mudan matalan qoyska awlawiye ku ah shaqada qoyska halka hore ku qor waxa awlawiye ku ah waxbarasho halka hore ku qor waxa matalan awlawiye ku ah inaad dhistid maskaxdaada iyo jirkaaga halka hore ku qor markaas awlawiyaadka saa u qortid waxaad haddana qortaa maxaa awlawiye ah oo priority-ga oo degdega maxaa muhiim ah oo degdega maxaa degdega oo muhiim aan ahayn shaqadaada waa inay caddaato weeyaan priority-gaagu waxaa loo yaqaan al-awlawiyaat waa inaad xadidaad weeyaan limits waa inay ku ahaato arrinta afaraad ee muhiimka waxa weeye ay dadkeenu inta fara badan aqoon noloshaada waa inay ku jirto waqti aad raaxaysatid waxaa loo yaqaano al-istirkhaa caqligaagu inuu raaxaysto jirkaaguna inuu raaxaysto fikirkaaguna inuu raaxaysto matalan maalintii maaha usbuucii waa inay jirto maalin aad caqliga iyo maskaxda u raaxaysid ood meesha aad dunida ugu jeceshahay ee dalkaaga aad tagtid fadhiisatid ku fikirtid waxaa la sameeya al-istijmaac waxa dhahda isku soo noqod baa dhahdaa enerjiyadaadii baad soo wada celinaysaa unugyadaadii baad ururinaysaa maskaxdaadii baad ka nadiifinaysaa wixii uska soo galay wax cusub baad gelinaysaa waa inaad mas'aladaana aad yeelatid arrinta shanaad waxa weeye in aad yeelatid waxa loo yaqaano alxusuul calaa mukaafa'a inaad naftaada abaalmarin siisid markaad shaqo weyn aad qabatid haddaad shaqo culus qabatid oo guulaysatid waa inaad naftaada guusha aad gaadhay waa inaad siisid weeyaan bismillah allo marka taasina waa muhiim dadkeenu ma yaqaanaan inay is abaal mariyaan dadka kaleeta abaalmarinta iska daa adaa is abaal marinaya arrinta lixaad ee ugu dambaysa waxa weeye iska ilaali waa muhiim arrintaasi inaad samaysatid barnaamijkaas oo buuxa ood u buuxisid si xag jirnimo ah isla markaasina mu'lima oo xanuun badan matalan dad baa jira ayaanta oo dhan wuxuu qabanaya buu qoraa uu buuxiyaana waqtigiisa ma geliyo waqtiyaal loo yaqaano addawaari emergencyga amba urgenska amba dawaarida amba waxyaalada aan lagu talagelin marka ay imato muxuu yaalayaa kuma talagelin marka taasina waa muhiim lixdaa arrimood marka aan fiirino waxaan ku tilmaami karnaa ikhwaani fillah walaalayaal
arrimood oo ah inaan ka faa'iidaysano si istiraatiiji ah maadaama al-amru kadalika waxaan u imanaynaa su'aal kale su'aasha kale waxa weeyaan axibatii fillah istiraatiijiyadda maadaama aan aragnay sidee iyo habkee horta baan isku diyaarinaa maskaxdeenu si ay waqtiga uga faa'iidaysato waxaan u imanaynaa iminka su'aal kaloo ah istiraatiijiyad ma dhigi karnaa aan oran karno waqtigaan kaga faa'iidaysan karnaa lambaro oo taa haddaan qabanno waqtigii waa si fiican baan uga faa'iidaysanay ibnu mascuud radiyallahu canhu saxaabigii weynaa ee nebigu barbaadiyey wuxuu oran jiray waxaan aad uga murugooda ma jirto waxaan aad uga murugoodaa waqtiga maalinka adceeddu ay dhacdo een waqtiga ka faa'iidaysan waayo ee ajashaydiina ay ziyaado camalkay uu naaqusmo camalkaygiina uuna ziyaadin aad baan uga murugoodaa cumar ibnu cabdilcaziiz wuxuu oran jiray waqiila abubakar sidiiq radiyallahu canhuma ina alleyla habeenku wannahaara iyo dharaartu yacmalaani fiika way kaa shaqaysanayaan oo qofka bini aadamka waxaa daciif ka dhigaya waa waqtigii baa socda isaguna waa gaboobaya way kaa shaqaysanayaan min asixa ila almarad waxay kaaga shaqaysanayaan min ashabaab ila shaykhuuqa waxay kaaga shaqaysanayaan wax walbaba adigu markaa maxaad qabanaysaa facmal fiihima adiguna ka shaqayso oran jiray waxa weeyaan maaragtay alkhaliil ibnu axmed ninkii farahidi ee cadiimka ahaa ee luqawiga ahaa ee dunida islaamka xadaaradiisa laga yaqaanay wuxuu yidhi asqalu saacaati calaya adduunka saacadaha igu culus waxa weeyaan saacatun aakulu fiiha saacaddan cuntada cunayo dadka qaar saacadday cuntada cunayaan waa saacadday ugu jecel yihiin isaguna wuxuu ku leeyahay saacaddan cuntada cunayo waa saacad culus maxaa yeelay waqti badan bay iga dishaa cuntadiina waa muhiim waa maarmaan laabudda minha in la cuno waa muhiim raashinkii marka saa daraaddeed ayuu saabu oran jiray marka maxaan qabanaa anaku si aan uga faa'iidaysano waqtiga sida ugu fiican ikhwaani fillah waxaan u baahannahay waxa loo yaqaano muqaawamatu alkasal walcajz alkasal walcajz waa ducadii rasuulka allahuma inni acuudu bika min alhami walxasan wa acuudu bika min alcajzi walkasal labadan jirada caajisnimada waxqabad la'aanta kasalka iyo cajziga maxaa laga hortaga waa inaad muqaawamo samaysid waa inaad ka hortagtid walidaalika waxay dhahdaan culummada tadbiirku culummada ka shaqeeya horumarka bini aadanka ka shaqeeya waxay yidhaahdaan waxaa laga hortagaa cajziga iyo kasalka in uu qofku sameeyo wax naftiisa ku culus oo marka dambena caado u noqda oo waxaa loo yaqaana kayfa naktasibu caadaat sidaan u kasbannaa caadooyin aan lahaan jirin kayfa nuqallil alcaadaat asayi'a caadaadka xun sidaan u yaraynaa kayfa natajaawas alcaadaat asayi'a sidaan u dhaafnaa caadooyinka xunxun iyaga nafteeda waxaa lagu qaataa tababaro fiican laakiin tababarka ugu muhiimsan waxa weeyaan almuqaawama inaan laga hortago resistance kasalku waa waxa keena in dadku ay horumar samayn waayaan waqtigana ka faysan kari waayaan marka laabudda min almuqaawama arrinta labaadi waxa weeye aliijaabiya inaad nolosha u aragtay si positive ah ha murugoonin ha calaacalin ha gaajo ruuxiya iska ilaali nolosha u arag meedaan aad wax ka qabsan kartid xataa ku noolow meel dagaal ka socdo u arag nolosha beritoole inay maanta ka ficlaan karto nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadday gacantaada ku jirta laan fi yadi axadikum fasiila saacaddiina ay sara kacayso ood awood u yeelatid inaad beertid beer ha odhanin maxaan u beeray qiyaami baa dhacayabe ha odhanin dagaal baa socdo waan dhimanaya ha odhanin waan dhakhtar baan ku jiraa waan jirraysanahay ha odhanin cudur xun baa igu dhacay ha odhanin aabbahay iyo hooyaday gaajo igu dhaleen anna waan gaajoonayaa ha odhanin waxaan deganahay waddan dib u yaalla oo dhibaato fara badan ay taallo ha odhan waxaasoo dhan waxaad tidhaahdaa aqdir waan karaa astadiic waan awoodaa uriid waan rabaa waxaan awood u leehay inaan isbeddel sameeyo
nolosheeda aan ku sameeyo si positive u fikir qofka sidaa u fikira waqtigiisa uu ka faa'iideysan karaa bilada culimadu waxay dhahdaan qabla kulli amal shaqo walood qabanaysid waxaa ka horeysa nafsiyatun musta'iddatun lil'amal psychological ahaan naf u diyaara inay shaqayso hadday naftu diyaar ahay inay shaqayso ma shaqayn karayso marka waa in nafta la diyaariyo arrinta labaadi waa taa weeye arrinta saddexaad waxa weeyaan qalin iyo buug qaado rattib al-umuur tartiibi waxa ku hor yaalla maxaa ku hor yaalla matalan shaqo la'aan baa ku haysaa ka fikirsaa shaqo u heli lahayd matalan iskuulka ma dhigan tacliim fiican bilow imika iskuulka inaad hoos ka soo bilowdid waxbaro tartiibi matalan diinta baad baranayo qur-aanka imika tartiibi al'aan laysa amis al'aan laysa qadan al'aan imika tartiibi al'aan waqtigaaga ha iska khasaarin waxaad ratibtaa maxaa priority ku ah objective maxaa ku ah maxaa programna ku ah barnaamij ratib qalliya buug qaado qor waqtigu inuu kaa dhicin arrinta afaraad iska yare intaa yaray kartid waqtiyaasha duquudka yoomiga shaqooyinka yoomiga ah ee kaa badan yaree dad baa ismashquuliya iyagoo waxba lahayn dad baa shaqooyin aan dan loo lahayn qabta iyagoo qaban kara shaqooyin dan loo lahayn dad baa jecel inay waxun ku mashquulaan iyadoo ay jirto wax kale ku mashquuli lahaayeen kullu daalika qallilaha marka taasina waa ta afaraad weeye shan ka fikir inaad cumrigaaga cumriyo badan ku dartid noloshaada dheeree 80 sano amba 70 sano 60 sano bini'aadamku noolaadaan iska diid nolol dheer samayso oo boqolaal sano ah oo kumaan sano ah sida u sameeyeen Einstein sida u sameeyey Newton sida u sameeyey Shaafici sida u sameeyey Malik bin Nabi sida u sameeyey Maxamed Cabdullah Xasan sida u sameeyey dadku way badan yihiin laa yumkin inaan soo koobno ilaa ay qiyaamuhu dhacayo cumrigaaga dheeree maxaa yeelay waxa weeyaan noloshu waa daqiiqado iyo sawaani qofka raba inuu cumrigiisa dheereeyana wuxuu awood u leeyahay inuu cumrigiisa dheereyn karo marka isweydii maxaad cumrigaaga ku dheereyn kartaa ka shaqee taas arrinta kale lixaadi asaasiyaadka nolosha maalgashi geli مثلا haddaad waalid tahay ubadkaaga maalgashi geli callim awlaadak waxaad haysatid oo dhan iyaga sii iyakii markaa ka soo bixi doontaa buugaan iyo kutub qor maqaalaad iyo cilmi qor reeb tababaro samee asaasiyaadka ka shaqee ha ka shaqaynin farciyaadka dadka waxa weyn ee dhisaya ka shaqee waxaa kaloo maalgashataa waqtiga aad raaxaysanaysid dadkeenu ma maalgashadaan waqtigaas waa waqtiga beritoole ku anfici doonaa ugu dambeyn waxa weeye waxaad maalgashataa qiimaynta waqtiga qiimayntiisa waqtigaaga waxaad gelisaa qiimaynta waqtiga waxay dhahdaan culimmadu ayaan walba 10 daqiiqadood oo qiimayntii maalinta samee usbuuc walba 20 ilaa 30 minute oo qiimayntii usbuuca samee bil walba waxaa samaysaa nus saac ilaa 40 minute oo qiimaysid bishii oo dhan haddana waxay dhahdaan sanadka waxaa samaysaa maalin aad qiimaysid oo sanadkii oo dhan aad qiimaysiin haddaad tahay sharikad haddaad tahay jamaciyad haddaad tahay jamaacad haddaad tahay xarako haddaad tahay xisbi haddaad tahay dowlad haddaad wax kala tahay haddaad qof tahay haddaad qoys tahay qiimayn sameeya marka taasina waa muhiim weeyaan haddaan intaa garanay walaalayaal waxaanu imanaa arrin kaloo muhiim ah maanta waqti badan iskama dilayno inaan waqtiga ka sheekayno qiimaha uu leeyahay iyo sida uu u qiimo badan yahay iyo waxyaalada aan waqtiga aan kaga faa'iideysanayno maanta waqti badan kuma dilin tacaala waxaan u imanaa waqtigu wuxuu leeyahay cadow acdaa'u lwaqti baa jira waqtiga maxaa inaga dilaa cadow baa inaga dilaa cadowgaasi waa 8 cadow oo waxaan u bixiyey maartay الثمانية amba 8 cadow ee inoo diidan inaan waqtigeena ka mura dhalino maxay yihiin 8daasi waxa ugu horeeya alghafla qofku inuu garan waayo qiimaha waqtigu leeyahay
وقافل كنقضه إنه قافل كنقضه إنه وقته الصعدو إنه قافل كنقضه إنه وقته السافي هيكون قوينيا هداد قوي ويديساه قوينيا الوقت كالذهب وقته هو ذهب هدو صعدو ما صار نقضه وقته وكف قيمة بديهي وحوله أدون خياله ولذلك وحيد هذان قالوا وقته هو ماس أبو ذهب لكن حسب بنا وحو رجلي الوقت هو الحياة وقته هو رشوة الحياة هي الوقت والوقت هو الحياة marka maxaa loo baahan yahay in qaflada laga baxo ilaahay uu quraankiisa kaga warramay dadka qaafiliinta ah oo zamanka aan ka faa'iideysan labo waxa weeyaan cadowga labaadi waa taswiifka waxaan waan qaban doonaa goorma waan qaban doonaa bari baan qaban insha Allah saan dama qaban insha Allah bisha ta qaban waan qaban doonaa wuxuu oran jiray ahad ulama at-taswif jundun min junud iblis bari baan qaban doonaa وأسكرت إبليس أو استعماله وياه مركا أديك وحالة جربها إلى بريت الثقافة اللي هذا العمل شقة الله الآن أعمل إيه مكان قبنا يا بوك بالآخر الآن أقرأ إيه مكان أخرنا يا عبادتي بجوك صلاة دي الظهر الآن أصلي الظهر دور كانت تقرأها وحويا سنيري خميس بجوكتا الآن أصوب وانصوم يا وحفظ قبا وانصوم يا وحتى إذا عمل مرة جيك الورد سجيمك الآن أذهب إيه مكان تقرأها كده بريتو لا تغينا صاحب ما تغينا ساكون ما تغينا مالك له مالك والبا واحد له بريتو ما دماته ولذلك waxa muhiim ah waxa weeyaan arintaasi waa muhiim arinta saddexaad waxa weeyaan al faraaq waqtiga aan la buuxinin ee qaatilka hadduu waqtigaagu yahay meel furan waxa ka faa'iideysanaya qof kasta oo waqti furan doonaya qof baa kula soo hadlay wuxuu ku leeyahay بريتو waan ku baahanay oo tagaysaa qolo kale kula بريتو waan ku baahanay oo tagaysaa dadku waxay ku gasharayaan mashaariicdooda balla khutata laha هو في خطة الآخرين تذك أن بلانج لهين تذك بلانج لا بلانج جوجا شرع ومن لا يتحرك لأجل أهداف فهو يملأ أهداف الآخرين قفك أن أهداف سووا أن قارين وحقوا بوحية أهداف تا تذك كريتو أيوب بوحية هذا وحويان أريد أنا على سكيل علي أريد أفراد وحويان يعدوا الجلوس أمامه internetka iyo maartay in la hor fadhiisto maxaan ku raadaha youtube-ka oo maartay arrimahani bulshadu ay ku sheekaystaan inaa shabakaadka oo la hor fadhiyo oo kii wax ku soo qoran la akhriyo kii caytamayna dhageysto waxa yani waqtigaaga inay maartay aad noqotid dhaxiyatun lihada inay arid bahalkani uu ku xakumo oo noloshaada oo dhan ka qaato وحويا وحيالله وقت الدلاء يكمل تحت وحكريته وقت الدلاء وحكمل مقاحيها على سكف فرديو كترك يمجلسية جات كلا جوعنا يلا فرديو وحكمل شيكوي جوريها كصعدا الهدف لهين إلا إسكشة كيسانيو تاسنا ومهم يعني وقت الدلاء وحكروا وقت الدلاء إنه جيرن organization تنظيم أم بقول جيرن planning قرن وقف وراعيه وقف مركو ساكا سوكعو لو عاوة سوق سريتو كسو نقونيو سيحانيو وقتي انت اللي وحو دحيو او قرن ومسجل waxaa kaloo kamid ah inuu qofku nool yahay bila ujeedooyin ujeedada inuu lahayn waay uu nool yahay limaada huwa fi alhayat taasina waxay keentaa inuu qofku maaragtay horumar xaqiijin waayo waxaa kaloo kamid ah inuu qofku ka ashkatoodo zamanka كسرة الشكوى إنه أشكتوده وعلى ويسويديو محا زمن كان أمر شيء والزمن كان زمن كان في عين الدلة هذا وقارنه بريجي هو دللها بريجي سوالي دولة لهيد بدللها بريجي هو وضرده في عين بدللها بريجي هو مركز لسميني دللها ويبقى محل سميني يعني محاوية قف كستيبا زمن كأنوري هيبو كأشكتوده تاسينا ما صح زمن كواحد باتقى وأنك إنه سمينا يا مجرو وح سمينا وأنك وقتك في عنا أنك سمينا بعد الله وقتك حنا أنك يا سمينا إذا كواسنا وحويان وعدوك وقتك سوى وقتك في سنة عدوك سوى كاس
سؤال شكله وحويان هدان إسئلة وقتي كفايديسي شقويك وقف في عنه قبل لها معي يعني هولها مهم كأه حتى لا وإن لقبتها مع سمين لها قلت وقت دينتي إنه وقتي وإنه نظام يصير صلاتك ووقت النظام صار إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا جمعوه هو النظام تضبط كي ما نبان جمعته كنا وحينون نظام زي كذا سنة كي إن مرة بحيو وحينون نظام زي حشكة إن مرة تجا حشكة نرش أن إسلامكو الدين تاني أركان الإسلام كي يو إلهي نظامي ونوغا دقيس وينوبرو إن أدوكو بهي التنظيم ولأنه لا كرين بلا نظام هدي النظام كان لقته وفوضى فوضنا وعبث عبث كنا ومحي ووحى كوريا لهم سماء وحي كوري ما دبا قبو وحي اللوي إنه واللوي إذا واحد ليش إنه ولا شيء سدا بي أدون كسر حادي أو صعدان ما وإن شقوي إنتان دورنا أنا هب أنا أرنم وكا شقوي كأن وقتها كم وحي كم شقته كوادي وحويان وحي له نوع أبوه وعبادة ويان عبادة إنه وإن أن أهل وقتي بدن عبادة وحوك لبحضها نوعية فرا بدن وحاجر عبادة لنهضو عبادة الأمة صلاة صومك زكاة حشك أخرسك قرآنك ذكرك ومضر دم وقبتها تحتاج منك إلى عمل إلى تنظيم أو وقتك إلى نظام صلاة وقتك إلى تكتب مدة كريتو إلى سنة شرعيسي مدة كريتو إلى معرفة أذكارتي سميسي مدة كريتو إن وحاس أو الوقت كقارن يعني كوا عداته حاجة عبادة هذا مساعد يبرد وإلى كوا عداته يعني بركة عبادة الله بعد وحويا العبادة الحالية هذه عبادة حال كعداته نبى مشترى عبادة الله محي ونفقها وزكاة وإن الوقف هنا بحيث كيف فكرت تنظيم وسميسيد تخطيط وسميسيد حداتها هي إن سميسيد معرتي زكوات كاغا ندامسيد إلى ندامسيد إنفاق كاغا إذا سينيسا إهلك مجتمع مسلمك هلكي أو خير بدون قرينيسا وحوالي مركا تهينين معرتي بيع مشترى وبزنسا وحال كفكريسا يمسوق بس شقة سينيسا شقة أبور ضدك المسلمين إن أو سميسيد لعقته معها وح لا يشو ووح له شقي ويا ولذلك علماء الإسلام وحدان المال وظيفة ما هم مالك وحكة ووظيفة وشقاء شقيسين لعقتها بك عبادة تاجرك واتاويا هذا هنين عالمة عبادة الله عبادة الحال حالات ده وحيان وعبادة الله يلاحظوا العلم علمي أخرسكيجي بارستيجي كتبدقيجي دبقوركيجي مارتي فتوى بحنتيدي maxaan ku radaa baristeedii waxaas oo dhan waa inaad ka shaqaysid hada huwa majaaluk oo u nidaamsid weeyaan haddaad tahay nin ma aragtay dhalinyaro ah cibaadada waxa weeyaan xooggan ilaahay ku siiyey meeshaad gelin lahayd hadday tahay waxbarasho hadday tahay maaragtay shaqo qabad wixii aad gelin marka qof walba cibaadadu leeyahay marka laga yimaada cibaadatul caama cibaadada caamka ah marka cibaadadu waa inaad waqtigaaga meel fiican ka gasho waana xaqii ilaahay kugu lahaa سبحانه وتعالى واتين لغو أبوري أرنت اللبات وقت إنا الجليسي ده وحويان وعلمي التعلم العلم نافع ما ننتهى عقلي يالتا إلا ما ننتهى لمنجل لابد وإنا وحبرتا ويان علمي وحبرشدنا وإنا تنظيم سميس وقت العام يعني إمساسة عاد وحبرنا يسا مثل المسكيت كده وحكبرن إمام كده وحكبرن شيخياتكو حلمي جامعة ديت قري أقونتيتكو تخصصي maxaad muslimiinta u tari maxaad nolosha ku soo kordhiyay maxaad rabtaa inaad noqotid waxaas oo dhan wuxuu ku xidhay aqoon alcilm cilmiguna waa inuu naafic noqdo waa in cilmi wax taraya noqdo arrinta saddexaad oo isleeyahay waa inaa waqtiga lagu buuxiyo waxaa ka mid ah akhriska cilmi lagu baro waxaa la mid ah amba kaba wanaagsan inaad isbartid waxaa loo yaqaano alcilmu daati altacallum alqiraa'a المثمرة قراءة مراهلة ماذا تقرأ متى تقرأ كيف تقرأ ويران ربع ساعة 6 ساعة وقتها كبيرة وحاد دونك الشقية لابد من القراءة قفكو هدو ماذا حيس الراشمين وايو وحنا قلنا يا سكدبي سكنود وما لها سكدو جوم نقرأ أرنت أفراد وحويان يقف من وقت السيئة وحاكم ذا
qoyska usraddu waqtiga kaaga baahan tahay hadday xaas tahay hadday ubad yihiin laabud inaad la noolaatid inaad waqti la qaadatid waxaa la soo saaray dadka bini aadamku imise daqiiqadood bay ciyaalkooga la sheekaystaan diraase cilmi ah waxay la sheekaystaan bishii 3 daqiiqadood sheekadu ma aha salaamu calaykum maaha inuu waqti siiyo 3 daqiiqadood waa fashal waxay leeyahay xaaska imise sheekaystaan islaamtii odayga dadka faashiliinta ah 10 daqiiqadood bishii laakiin saaxiibadii qofku bisoo la sheekaystaa saacado badan marka usraddu waa muhiim inaad awliyadda ay kugu jirto arrinta shanaad waxa weeyaan dadka muslimiinta waxaa u muhiima inuu dacwad ka shaqeeyo dacwaddu waa maxay inaad diintan kor u qaadkeega inaad mashruuca ka qayb gashay dacwaddu ma aha dadka uu diinta loogu yeedho oo qoratay yeedhista diinta waa project waa mashruucu dacwa waa inay meel kugu jirto oo shaqo weyn aad ka qabatid iyadana waa muhiim weeyaan arrinta kaleeto waxa weeyaan alcamal التطوعي inaad yeelatid shaqo khayr ah samafalka inaad ka shaqaysid oo aad ka qabatid meel ka mid ah samafalka matalan nadaafadda magaalada geed beerista maaragtay maktabadaha nidaamintooda dhalinyarada sport ciyaarsiintooda maxaa la dhahdaa artiga iyo fanka si loo hagaajin lahayo loo islaamisayn lahayo loo wadaniyeyn lahaa waa inaad ka shaqaysid si toddoba inaad tatwiirka iyo binaaga inaad semineero qaadatid matalan labadii bilood waa inaad semineer qaadatid matalan semineer sida loo khudbada ayaad qaadanaysaa semineer sida dadka loo qanciyaad qaadanaysaa semineer waxaad qaadanaysaa sida loo xalliyo mashaakilkaad qaadanaysaa tababar waxaad qaadanaysaa sida dadka bini aadamka ah loola noolaado qaadanaysaa waxaad qaadanaysaa sida dadka marka aad la sheekaysanaysid loo dhegeysto waa semineer dad baa jira dadka dhegeysan maba iyaga laakiin la dhegeysta jecel laabud dhegeysigu waa fan kayfa tastamic sidee ku dhegeysanaysaa waa muhiim marka tatwiirka iyo binaaga tasdiidaad waxaad u baahan tahay waqtiga istixmaamka waqtiga aad nafta u raaxaysanaysid dad baa jira raaxadoodu ay ka badan tahay shaqadooda oo inta badan raaxaysta laakiin aan shaqayn dadkaasi waxay ku nool yihiin waxa la dhahdo tukhmatu raaxadii baa barartay dadna waxay ku nool yihiin camal laa xadda lah waxaa ku dhaca tukhmatu lcamal raaxadii baa baabada dad baa jira inta badan aan keligood fadhin karin oo doondoona dad ay la sheekaystaan taasina waa mushkilad kale arrintaasina waa waqti yar oo fiican oo istixmaam inaad heshid weyaan waxaa ka mid ah spoortka inaad ciyaari kartid socod orod ninba si caafimaadkiisu yahay inuu samayn karo waxaa kaloo muhiim ah waqti inaad gelisid xagga calaaqaadka waxa loo yaqaano xiriirka iyo maaragtay communicationka inaad gelisid waqti muhiim ah matalan waxaad cilaaqo la yeelanaysaa dadka kula shaqada ah dhakhtar baa tahay waa inaad samaysatid communicationka inaad baratid sidaad u samaysan lahayd shabakad dhakhtarra ah kuwa ka aqoon badan kuwa kula mida matalan daaci baa tahay ballaadhi matalan waxaa tahay qoraa ballaadhi matalan waxaa tahay hooyo ku mashquulshan ubadka hagaajintooda hooyooyinka matalan waxaa tahay nin maaragtay sheekha culummada waxaa tahay ka soo qaad maamule dadka wax maamula sharikad baad leedahay shirkadaha kobac samee xagga maskaxda waa muhiim weeyaan marka intaas waxaan u arkayaa inay tahay wax badan oo laga faa'iideysan karo inaa maaragtay waqtiga la geliyo ikhwaani fillah hadda waa laga dadku markay zamanka waqtiga la nool yihiin 2024 dhammaan imika waxaan bilaabaynaa 2025 waxaan nool nahay bishii lixaad ama jumaad maaragtay الثاني أما الآخر 29 baan nool nahay beritole rajab baa inoo bilaabi doonta insha rajab ayaan bilaabaynaba khalaas marka rajab shacbaan ramadaan wahakada waqtigii baa socdaa dadku markay waqtiga la dhaqmayaan imise qoleyihiin mataqaanaa
aniga marka aan baaray buugaan badanna aan ka akhriyey ta'amulna aan sameeyey reflection noloshana aan fiiriyey waxaa ii soo baxay waxaan soo socdaa horta markooda waxaa ii soo baxay dad waxaa jira waqtiga taariikh waqtigii hore qadisa sidaa baa la ahaan jiray walidaalika waxaa maqlay Soomaali xidhadeen hadalna waa intii la yidhi ragna waa raggii hore hadal waa intii la yidhi ragna waa raggii hore waxba kama jiraan waxa la sameeyey 20kii sano ee na soo dhaafay waxay ka badan tahay 500 sano ee hore wixii la sameeyey marka waxa oran kartaa xagga teknolojiga iyo horumarka waxaad oran kartaa rag waa raggii hore 20 sano waxa la sameeyey baa ka culus 500 sano wixii la sameeyey marka waxa jeynuhu wuxuu soo saaraa sanadkiiba 80,000 oo baraa'igtana wax cusub ah 80,000 oo wax cusub ah isagu ma yiraahdo raggii waa raggii hore hadallo waa intay yiraahdeen sidaas oo kale culimada islaamka qaarkood yiraahdeen lam yatruki al-awwal lil-aakhir shay'an kii hore ka dambe waxba uguma tagin wax walba kii hore dhameeyay marka waxa tahay taariikhda baa dhameeyay marka dad baa jira la yiraahdo al-muqaddisuna lil-maadi taariikhdii hore maadigii bay qaddisaan ya waxa uu haystaa waqtigii hore in la fiicnaa bis oo maanta waxba la qaban karin dad waa caynkaas kuwa kale waxaa jira waxa dhada al-aashiquna al-haadir haadirkii jecelihiin waxa maqlan in la oran jiray caayid al-qarni inkastoo soo kelmadda lahayn uu del Carnegie ka soo xaday wuxuu yiraahdaa shalayna ma soo celin kartid barina ma ogeyn inaad noolaan doontid maanta aad nooshahay maanta ka faa'iideyso kelmaddaas kelmad diiniya ma aha quraanka waxa ku qoran ilaahayna uu subhanahu wa ta'ala ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat liqadin wattaqullah ilaahay wuxuu yiri dadka ilaahay ka baqa ilaahay aaminay rumeeyo Allah ka baqa oo naftu had diyaariso waxay beritoole ilaahay loo hortagi lahayd ilaahayna ka baqa hadana mar labaad marka qofka bini aadamka mustaqbalkana uu eegaya wal tanzur nafsun ma qaddamat liqadin maantana uu shaqeynaya waarki doona marka dad baa jira caashiqu allahda maanta noolii bas maanta jecelihi waxay ku leeyihiin maanta kadib inaan dooranaysid ma ogid ka faa'iideyso waa qolo labaad qolaas qolada saddexaad waxaa la yidhaahdaa almuntadiruna lilmustaqbal mustaqbalkiisu weeyaan waxay ku leeyihiin alxamdulilah shalayna ma fiicnayn maantana waan jabnay muslimiin haddaan nahay biniaadam soomaali haddaan nahay biniaadam nahay maxaan rabnaa bal mustaqbalka nageena waa qolo saddexaad qoladaasi qolada afraad ee waxaas oo dhan ka xun waxa weeyaan waa dadka nool ee waqtiga la nool kula nool inay hawaawiyaan isagoo fiicnaaday isagoo dhoofaya nin baa u yimiday imaamkii weynaaye alxasan ee basri ee fasiri jiray axlaamta iyo hawaawiyada iyo manaamyada wuxuu waxaan ku manaamooday imaamow anigoo habeenkii duulaya oo magaalada dhexdooda bilaabaado duulaya wuxuu yidhahdoo dharaartii iska socda ayaa manaamtaa anta taciish fi lmanaam marka waa manaamkii baa kugu yimidee waxaad duulaysa ma jirto ku yidhi waxaa jira dad kaloo shanaadoo alkhaa'ifuuna min alwaaqic realityga ka baqan baba waxay ku leeyihiin sidan aan ku noolahay si maaha waqtigu waa maxay cabsi baa haysa kuwo kaloo waxaa jira dhado almustaslimuuna lilwaaqic waaqica isku dhiibeen waxay ku leeyihin war wax la bedeli karaa ma jiro waxaan qabsan karaay ma jiro ilaahay oo soo gurmado maahine noloshu waa sidaas bay iska tahay kuwo kaloo waxaa jira dhado almutafarrijuun oo nolosha daawanaya inta iska fadhiistay gidaarada waxay doorteen wax dhado alxadiisu inay ka sheekeeyaan can innaasi dadka dadkuna nolosha qaar baa matalaya matalan ka soo qaad qofku hadduu ku nool yahay koonfurta soomaaliya hadduu ku nool yahay dowladda soomaaliya dee qofku wuxuu ka sheekeynayaa madaxweyne habasan buuri wasiirar baa la magacaabay waxaas wax ka in badan kaa khuseeya ma jiro laakiin waxaa ku khuseeya wax weeyaan adiga maxaa kuu yaalla inaad qabsatid xaas baa ku sugi ciyaal baa ku sugi aakhira ku sugi diin baa ku sugi nolol baa ku sugi adiga maxaa qabsanaysaa hada waa su-aashaas weydiiyeen dadaa dadka inay ka sheekeeyaan tafarruj daawasho ku jira waxaasoo dhan waxaa ka daray kuwa ciyaara jin baasha ciyaara oo ka uun waqtigii uu ka qaadanayo maaragtay 10 saaco 5 saaco rag waaweyn oo baalka ciyaaraya isku imanaya inay ciyaaraan
قاربا نلشوا ذا بقول كيبا تضبات اللي إحنا كقدرنا سا عيارها أم بوكش كنا عيارها أم بيسووا وينادي بعيارها هول كلام هاي وحاس أردني وقت جيب إنك تشي مركا قرآنك وحنا بري وحلا هذا وحنا صوص على قو حولي وقت إنك تجي إيه كل عافية إيه أدوق أتكمل هاي أم بأبها كمل ها أم بالجنريشن دي هراء كمل هاي إلا الصحابة دي إلا أي أنبياء دي وحد كل دقة تحسين صوص على horta dadkani ma soo noqonayaan taariikhdooduna ma soo noqonayso maxaa markaa ku jira ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waxa aad aragteen ummadaha aad aragteen waa tilka ummatun qad khalat way ku diisay laha maa kasabad waxay shaqaysatay iyadaa iskale walakum maa kasabtum inunkuna waxaad leedihiin waxaad shaqaysataan walaa tus'aluun liliba weydiinayo camaa kaanuu yafcaluun waxay qaban jireen عما كانوا يعملون وحي قبل جرين أذن لقوا ويدينيو حال لقوا ويدينيا وحاضر قبل يسن أوكي سؤال شو وحويان لا تفكر في الماضي هكذا جزافا محل ماضي ما كان قبل ساعة فاعتبروا يا أولي الأبصار عبرك قاضوا درسك الصبح قد خلت من قبلكم سنن فصيروا في الأرض فانظروا تدكي إن يقول ري واحد إكتار محي هو البركو قاري محي كو جغير kala soo bax taariikhda adigu noloshaada ku dhis markaa ha ka fikirin inaad muqaddiso tiro waragu rag bay ahaayeen waragu xeerar bay dejiyeen waragu cirkay tageen waragu waxba yiraahdeen waragu hadallo waaweyna way yiraahdeen ay khalaas intaad ma soo noqonayaan lan yacuudu ila taariikhi abadan taariikhda kuma soo noqon karaan التاريخ لا يعود إليها البشر ضد تاريخ ده مثل ما سوى الأمان ويسعدان محاجر ما أدو تاريخ ده مثل أنت عيش في التاريخ لا تعيش في الماضي أدو ماضي هنولانين زمن كيهور أدو هنح فردين إيمي كرنورو تاسا مهمة أريتها الله بعد وحوية ماضيها إبراك الله صباح درسك الله صباح سننك وضع برو فإيدك الله صباح نلاش هذا كلس قرار قاضي مركز مع قرار قاضي نساء الحاضر بالعمل المتوازن حاضر كشقاء إيمي كان نوشة معها إيمي كشقاء معك كشقاء نساء العمل عمل كقرآن قلوب بعي أفر قرآن قلوب الشقاية وقول اعملوا شقاء قرطة مالك القرآن قلوب وصارعوا ترطمها مالك القرآن وسابقوا برتما مالك القرآن فليتنافس المتنافسون وحيوبحيين علماء واوين السرعة والإنجاز dadka horumarka gaara waxay leeyihiin degdeg iyo waxqabad surca iyo injaaz ay la soco kelmadda waa inaad wax soo saartid waa injaaz wax qor wax akhri wax biiri nolosha wax ku soo dar injaaz keen ninbaa ciyaartoy weyn noqday ad maxay kugu taala miisi ad ina ka sheegaysid maxay adig kugu taala adu miisi baa tahay أنت لست ميسي ملايين تو هايستر ميسيتين بقى قولي حنعوني صالحوها يعني جارة يسوونه حنعوني الذهب وكعوني عطاء أنت لا وقت كاسكيري هذيك وقت كان كفايسو ما حد كفايس سنة وهذا مثلا إنجاز وإنجازي سأدعو إنجازي دق وجر شغل دق قبو اسرع في الخطوات عاجزا لغورين السرعة والإنجاز لابد بالقرآن إنك ضلبي وصارعوا وسابقوا مع مرة قبل إنجاز وحبان إنجازين حاصل علينا أوكي مستقبل كان سنغشق علينا بالتخطيط بلانك والعمل الاستراتيجي وأنا سكوت ديرنا مستقبل كان إنا بريت ولا نرشا الرقم كالنقل لذلك أيها الإخوة وحان كد بالدي كرنا كحسي كرنا ماها وحان لسمينا يؤيه إن هبينكي لسوجيدو أو لعيارو وميزيك لطبو أو الريد الرش لغيدو أو هذا مال عصبة بلا ميسا حتى مالت عصب ما هو مال عصب ومال ما هلا مذا لكن واحد مالته مال ما كده وانتهي إنه هو كان وإذا مالت شاري طوي ولذلك واحد هذا قف مالتي سوشيالي سويسا هو خساري هذا الشري ده هذا مالته أسوأ كاتو واد خسارت هذا اللي بدأ بمسك الدوران ويان نع فكرك نع فيجنك نع هرمرك dhinaca wax soo saarka haddaad sidaa wax u arkaysid ay biiri weydo ay kordhi weydo oo sidaad u arkaysay sanado ka hor ilaa maanta aad u arkaysid
macna male inaad rash turturtid oo tiraahdo sanad cusub baa inoo curtay oo isku soo qorno waraaqada aan leenahay sanad wanaagsan ama aan isku sheegayna sanado fiican iyadoo oo sanad wanaagsan ay iman karto shaqo ayna ku imanayn hadal iyo af ku imanayn walaalayaal waxaan nii rajaynayaa shaqo wanaagsan iyo camal wanaagsan iyo kala faa'iidaysi wanaagsan intaa dib u kulmi doona insha allah darsigan mid la mid ah oo ka duwan duruustii siyaasiga ahayd oo ah darsi tababar iyo cilmi iyo aqoon aan isku wadaarsanayna insha allah dad fara badan baa ay soo qorayo igula waxaan rabnaa inaan maalin su'aalo aan ku weydiino waan samayn doonaa insha allah usbuucyada soo socda istaraatiijiyadda sanadkan ee cusub oo isbedel baad ka arki doontiin dhinaca warbaahinta insha allah aan samaynayna inta aan kulmi doono waxaan naga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo